بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. waxaan rabaa klibkan gaaban inaan kusoo gudbiyo labo arrimood oo degdeg ah oo aan rabo inaan la wadaago Soomaali meel kasta ay joogaan. mid waxa weeye maalmaha la soo dhaafay dhowr kamir la soo dhaafay waxa socotay oo aad media ugu jirtay ama TV-yada iyo xamar kuwa khaaska loo leeyahay ama social media ha noqotay waxaa ka buuxday siyaasiyiin ay ka mid yihiin xasan sheekh maxamuud iyo sheekh shariif iyo ninka la yiraahdo cabdiraxmaan cabdishakuur iyo rag kale oo runtii Soomaalidu inay aad u fahanto loo baahan yahay aad inay u fahmaan nimankaas xaalkooda iyo qab dhaqankooda maalinba waxa ka dambaysa hadalkoodu sii tarhayo oo Soomaali ay indho u furmahayaan. marka waxaan rabaa maantay arrin aad ugu celceliyeen oo ahayd arrintii dhalinyaradii tababarka loo qaaday Soomaaliyada askarta loo qoray oo wadamo badan loo qaadi jiray. Uganda loo qaaday, qaar kamid ah Ethiopia loo qaaday, hadda ka hor waxaan ku rahdaa Turkiga hadda loo qaado, maxaan ku rahdaa markii Eritrea loo qaaday. qaybtii Eritrea loo qaaday ayaa waxa laga sameeyay waxay ka sameeyeen campaign kicin iyo abaabul ku saabsan oo qabyaaladeysan oo u jeedid qaabka loo hadlahayo inay tahay habdhaqankii caanka ay ku ahaayeen oo waalidiinta ciyaalkii carruurta dhalay iyo dawladda hadda jirta oo campaign-ka hadda lagu jiro hadda doorashada la aadahayo in la iska hor keeno oo la fool xumeeyo ay rabaan. dadka Soomaalida aan hadlin afkoodan ku hadlahayaa maalin kasta waxaan dhageysanaa oo aan dhagahayaga ku maqalnaa indhaheena uga jeednaan ragga noocaas iyo rag lamid ah oo fursad u helay inay fariimahooda guracan hawada noo soo mariya oo ay YouTube-ka iyo Facebook iyo Twitter-ka iyo meesha doonaan soo geliyaan. marka tarmuus ma nihin dadka shacabka Soomaaliyeed tarmuus ma aha wax biyo ku lagu shubo ma aha. waa in la helaa dad shacabka Soomaaliyeed oo aamusan fikir ka guuxayo oo la aamusan yihiin aysan sheegi karin dad u sheegay in la helo baa la rabaa. dadkaas inaan ka mid noqonnaa rabnaa marka oo aan Soomaali u sheegno dadka noocaas ah nimanka hadda magacooda aan sheegay iyo kuwa lamid oo fara badan oo magaalo kasta iyo gobol kasta jooga oo ay ka muuqato isku dirka iyo qabyaaladda iyo wadamo kale oo shisheeye in loo shaqeeyo oo loo hiiliyo inaan dhahno maya waa diidan ma yeelan arrintaas lana kuma shubi karo. waxaan ka qabnaa fikir kale oo ka duwan dhalinyarada Soomaaliyeed oo ciidanka ah oo Eritrea loo qaaday oo la tababaray haddii awood ay leeyihiin oo la tababaray oo ay hub ay ku dagaalamaan haystaan oo awood maanta inta meesha lagu tababaray lagu jabiyo oo lagu jiheeyo TPLF iyo Tekere gobolkooda oo Soomaali waxay ka geysteen ilaa hadda yartaan laga dhameyn leeyahay xumaanta iyo dhibta ay Soomaali u geysteen dilka kufsiga dilka foosha xun masaajid dadka lagu laayay culimada Soomaaliyeed masaajid lagu laayay kufsiga dhaca dubinta guryaha burburinta jidadka maskaxda dhalinyarada Soomaaliyeed oo lagu cayaaray oo Muqdisho inta calankii laga taagay Ethiopia laga taagay madaxtooyada Soomaaliya la dhigay oo la istaagay oo ciidankii Ethiopia ay badda Soomaaliya xeebta liida ku dabaasheen qabjabka Soomaali ay ku dhigeen xumaanta gaari inta kaga soo bilaabeen Soomaaliya xuduud kasta ay leedahay si u soo ordahayeen dhalinyarada Soomaalida cagta mariyeen oo deero u hardin waxaasoo xumaana nimanka geystay oo saas Soomaali u galay u fool xumeeyay oo ilaa hadda yartaan maskaxda Soomaali laga saari lahayahay oo tuulooyinka xuduudaha ku yaala haddii qofka Soomaaliga la yiraahdo Ethiopia la yiraahdo uu qaadan Ethiopia Soomaaliya haysato oo hadli karin oo uu qabo in hadduu hadlo inta habeen la jeebeeyo ilaa wax la soo baray la qabsanayo inta la qaxeeyo ayadoo xataa laga adkaaday oo la jabiyay nimankii Tekere la jabiyay oo TPLF meesha ka baxday baa weli dadka Soomaalida qaar kamid ah xuduudaha dadka degan cudurada iyo baqdinta ku jirta iyo fulinada ku jirta aysan ka bixi karin content soo socota laga saari karin dadka saa madaxa loo kufsaday oo la baacsaday waxay taa kaaga sii daran oo ka sii xun
dadka ay beereen oo dadka haddan ka sheekeynayna ay ka midka yihiin iyo kuwo fara badan oo gobol kasta jooga oo dadkii Soomaali dhoofin jiray ah magaalooyinka Soomaaliya ka qaban jiray Soomaali galbeed ka qaban jiray magaalo kasta ka soo xirjeebayn jiray dadka saas Soomaali u galay oo dadkaas u soo hormariyay dadka Soomaali jarjaray oo ka dhigay tuulooyin iyo gobollo u kala jaray dadka Soomaali 4.5 sanka u galiyay dadka Soomaali yiri waxaad tihiin waxaad ku heshiin kartaan qabiil baad ku dirarteen ma heshiin kartaan isma arki kartaan waxaan idinka dhigaynaa federaal baan idinka dhigaynaa oo Soomaali qabaa'il federaal ka dhigay calamo gaar ah oo mid kasta sida hashii geel ay sumadan jireen nin kasta oo calan qabyaaladeysan oo qabiilkiisa sheegaya oo meel surtay raggii waxaa ka dambeeyay oo TPLF oo saas Soomaali u kufsado oo galay u falxumeeyay oo maskaxiyan u la Soomaali u dilay oo jir ahaan u dilay oo diin ahaan u ku tunto masaajid dumiyay nimanka maanta ay u doodahaya oo leh ciidan Soomaaliyeed baa loo diray ciidan wiilasha Soomaaliyeed meelaha lagu sheego ciidankii Soomaaliya waxay ka tikeeray ka diraray waxaan u aragnaa dhaqan xumo tii hore ka daran waxaan u aragnaa shacabka Soomaaliyeed haddaan nahay oo haddaan nahay kuwaan hadlin afkoodan ku hadlaynaa waa sheegaynaa runtaa sheegaynaa waxaan u aragnaa inay qayb ka yihiin burburka Soomaaliya nimanka noocaasi iyo ragga la midka oo aamusan oo qaar hadlaan oo meelaha ku soo qora oo is celin karin haddii maanta ciidanka Soomaaliya uu xoog lahaan lahaa oo Soomaaliya maanta meesha ay taaleys ooli lahayn ciidan Eritrea laga diray iska dhaafay xamar baa laga diri lahaa xamar laga diro ciidan dhisan 6,000 7,000 8,000 10,000 dhisan oo kumaan doosanta la diro baa cagta la marin lahaa oo waxa la caawin lahaa militariga waxaan ku raahdaa Ethiopia oo ilaahay ka hor keenay nabsigii Soomaaliya ka galeen ka soo tigray ka soo baxday tan lagu daro oo tuutahooda qaataan oo kaarahooda fuulaan baa cagta la marin lahaa oo lagu leen lahaa la dili lahaa sababtoo ah Soomaalida ka intaas u geystay way marka waxaan leenahay dadka noocaas ah ka waantoomeen marin habaabinta iyo beenta iyo foolxumada dhalinyarada Soomaalida la tababarku ma dhamaanin habeen kasta la hadlaa telefoon lagala hadlaa anaga aragnay dad la hadlaya aragnay walaalahood la hadlaya xiriyahooda iyagu jooga fadhiya ayuu xiriyahooda fadhiya oo tababarku u dhamaaday dhawaan buu dhamaanaya qaar hadda oo dhamaad haduu gabagaba ku jira ayuu saa loola hadlo oo tababar ku jira oo Soomaali ku soo noqonaya oo Soomaali ku soo biiraya ciidanka Soomaaliya noqonaya oo shalay ciidankii Soomaaliya ay fool xumeeyeen ragga Soomaaliya askarta ciidankii Soomaaliya oo Soomaaliya joogay fool xumeeyay oo $100 qaada ama guriga hooyada aad yiri oo militariga Soomaaliya iyo booliiskii inta la hadlay iska hor keenay oo qabiil iska hor keenay oo dhufaysada xamar ka qoday oo shacabka Soomaaliya qofka ugu aragtida yar oo xataa qabyaaladu ku jirto uu yaaban yahay uu leeyahay waxaan waa maxay raggaas maanta waxay rabaan inay Soomaaliya iska soo hor keenaan oo maalin kasta Soomaali u sheegaan wax aan sax ahayn oo been ah waxaan leenahay marka Soomaali waa wacyi gelinaynaa shacabka Soomaaliyeedna wuu ogyahay inta aan hadlin hadal afkoodan oo ku hadlaynaa maalin kasta qunjuraafka halkan laga sheegay qabyaalada laga sheegayo oo shacabkaas lagu marar haabin waxay u baahan yihiin dad qabyaalad ka hufan oo Soomaali runta u sheega taas waa qodob nimanka intaasaan uga baxaya Soomaalina waa ogtahay ayaguna waa is og yihiin danaha ay leeyihiin dadka u shaqeynayeen waa loo jeedaa ognaa tada kale aan rabo inaan ku daro ajalka 8 minute buu maraya uguma talagelin wal intaas inuu gaaro waxaan isleeyahay 4 daqiiqo 5 daqiiqo ku soo koob midda kale aan rabo waxa weeye doorasho qof iyo cod ah Soomaaliya inay aado oo 4 sano dawladda ugu dambeysay Maxamed Walahi Farmaajo ka shaqeynaysay day 1 markii la bilaabay yaa ganafka lagu dhiftoo la diiday waxaa loo diiday waxaa la arkay hankii iyo qabkii Soomaaliya soo noqday waxaa la arkay dawlad hore u socota haba tabar daraati ah oo dawladihii hore oo la soo dhaafay tii Shariifka iyo tii Xasan Sheekh iyo wixii ka soo horeeyay dhanba ka duwan oo jid kale haysa inay tahay waxa loo arkay shacabka Soomaaliyeed haddii qof iyo cod la yiraahdo in dawladdan soo noqonayso madaxweynaha la dooranayo ganafka lagu dhifto waa la diiday isku soo xoori hadda waxaa la aaday oo in badan la isku waafaqay inkastoo wali wax ka dhiman yihiin doorashadii dadbanayd marka baaqan waxaan ugu talagalay hadda ka hor waan soo jeediyay kan oo kale mid lamid waa ku celinaynaa maalin kasta waa ku celinaya hadii Ilaahay waqti na siiyo waxaan leenahay
qof kasta oo Soomaali ah oo haba yaraatee qayb ku leh inuu maanta golaha baarlamaanka Soomaaliya iyo golaha aqalka sare inuu cod ku yeesho qof kasta oo ku leh wax yar waxay doontaa noqotee qalin warqad lagu qoray magac la qoray cod la bixiyey talo la soo jeediyey waxay doontaa noqoto qof kasta ururada bulshada reedka meesha doonaa kaga jiro culamada ka mid noqdo culimadiinka ka mid noqdo odayaasha dhaqanka iyo nabadoonnada ha ahaado dumarka iyo gabdhaha dhalinyarada oo meesha ku qoran cod bixiyaasha qaybaha ka ah ha noqdeen wiilasha dhalinyarada la qoray ha noqdeen meeshay doonaan ha joogeen qof kasta dowlad goboleed ha noqdeen qof kasta mas-uuliyad baa ka saaran inuu maanta Soomaali ku soo daro qof Soomaaliya horay u sii kaxayn kara oo meesha ay maanta joogto meel ka fiican qof geyn kara qof aan Soomaali qabyaaladii fool xumaysay aan baarlamaanka hoost ka dhex bilaabin dhexdiisa ka bilaabinin waa soo aragnay baarlamaanka tada ugu dambeeyaan ku soo aragnay kii ka horreeyo ka sii daraaban ku aragnay baarlamaan Soomaaliyeed oo la yiri wuxuu matalaa Soomaaliya uu matalaa 4.5 loo soo doortay dil rabo oo la yiri Soomaaliya uu matalaa oo dhexdiisa mikrofoonadiisa looga sheekeynay reer hebel iyo reer hebel iyo reer hebel baan soo aragnay dhagahaygaas qarxiyay barnaamij dad noocaas oo kale ay soo baxaan waxaan marka ka codsanaynaa oo ku waanaynaa oo tusaaleynaynaa dadka noocaas oo cod kale ama fikir kale ama wax ku leh waxba ha yaraatee ku leh inay Soomaali ku soo daraan oo ka fakaraan qof Soomaaliya hore u kaxayn kara oo Soomaaliya wax ku soo kordhin kara aqoon leh oo ka hufan qabyaalad jifaysi iyo nin jacaylsi iyo in nin kala rarto ama wadan kale adeegsado batari kasto arrintaasna waa muhiim isgaarsiiya oo Soomaali gaarsiiya kalimadayada xaqiiqada ku salaysan la bakhaylmeen ba sheegayna dadka kale oo Soomaalida aamusan oo Soomaaliya jooga ama dibadaha jooga oo fikirka suuban lehna waxaan leenahay hadla haddii dad xun oo qabyaalad iyo saqajaanimo ka shaqeeya ay Soomaaliya maalin kasta tashkiilin ugu jiraan oo qoran soo deynayaan oo meel kasta ka hadlayaan libaada loo hadlayaa dadka loogu sheegay waay maxaa loogu sheegay yaa dadka u sheegayo waaninayo runta u sheegay hadii na hadlin wax ku soo gabagabeenaya dowlad goboleedyada waxay shaqo ka dhigteen inay dadka soo baxaya gobol kasta ka soo baxaya dowlad goboleed kasta ka soo baxaya inay ayagu ul saaraan oo soo soocaan si xukunkooda hadhow ugu ilaaliyaan fikirkoodana ay ugu waardiyeeyaan oo meeshay doonaan ay ugu jiheeyaan dadka noocaasi waxay u barteen inay soo soocaan dadka meelahaas degan dadka ayagu ay rabaan inay ka soo socdaan ul saar inay ku sameeyaan election lama dhigi karo waa selection ul saar baa la dhahaa xoolaha ninka yaqaan baa yaqaan ariga ul saar subaxdii baa la tirshaa in la tiriyo hebel iyo hebla baan rabaa 20 kaas qof inay ka soo baxaan meeshayda ama 30 kaas ama 40 kaas intay doontaan noqoto rag isagu yaqaan oo la fariistay oo asaga fikirkiisa iyo jeebkiisa ku shaqeeya inuu ka helo ayuu rabaa hadda ka hor baa la tijaabiyay ninkii ugu weynaa oo arrintaas ku guuleysan waayay oo isku dayay oo damcay inuu ku soo noqdo 4 sano inta soo liqay oo waliba 6 bilood kale ku darsaday 4 sano oo dambe inuu soo noqdo isku dayay xasan sheekh buu ahaa 4 sano wuxuu ka shaqeynayay siduu u tacban lahaa dad u samaysan lahaa dad isagu uu leeyahay oo jeebkiisa ku jira baarlamaanka soo buuxiyay baarlamaankii bad ka soo siiyay lacag kastoo siiyay guryo u dumiyay dad leeyihiin buu dunshay oo qayb siiyay wax kastoo jeebka u shub waa shaqeyn weyn meel kastoo ka soo xambaaray meel kastoo ka keen waa caddahay Soomaalidu dhan isku waafaqsantaa mar alla markii gabra meesha soo fariistay oo baarlamaankii rag ka dhaxadleen baa waxa loo rogay dhankii kale Soomaali si kasta qabyaalada ugu jirto si kasta waxa xanuunsanaada ninka Soomaaliga ah marka loo sheego waxyaalaha runta reality la taabsiyo qofka Soomaaliga qof muslim ah oo sharaf leh oo loon qalbi nool oo qabla weey haddii madaxa laga rarto oo la fool xumeeyana waa sida hadda Ethiopia ay ku sameysay maxaan ku leeyahay inay TPL ku sameysay baqadin iyo gariir iyo guri ka soo baxwa baa ku badan waa dad aad aan ula yaabay Soomaalidu waxay u baahan tahay marka inay ka fikirto waxyaalahaas dowlad goboleedyadu inay ka fikiraan
haddii lagu guuleysanahayo ulsaar iyo dad lasoo jeeb lagu soo gurto oo baarlamaanka laga buuxiyo wax lagu noqonayo xasan sheekh baa ku noqon lahaa. Waa idinku dheereeyey, sheergareeya, gaarsiiya dhalinyarada, wiilasha iyo gabdhaha Soomaaliyeed oo codbixiyaasha ah oo boqolkiiba halka gaarsiiya, odayaasha dhaqanka gaarsiiya, culimadiinka iyagoo laftigooda qeybaha codka kule gaarsiiya, ururada bulshada rayidka gaarsiiya, Soomaali meel kasta oo ay joogto gaarsiiya. dad dhalinyaro ah oo waxgarad ah oo qabyaalad ka hufan in la soo saaro oo nin loogu daneeyo waddanka loogu daneeyo ayaa la rabaa. saasaan anagu ka shaqeynaynaa haddii Ilaahay idmo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.